markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan oo aalabaad kala socotaan wararka dambe ee Kalsan TV. koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan arooy magal meelun ay fadhi magad wadaa mahaan marsanna adeer anagu ilaahay baan magan galnaa war heede dadaan af Soomaali aqoon baad tihiin magad hadaad maqashaan waa rag hadaad magad tihiin muran ha ka keenin hadaad wax kale tihiin dantaaba idin bari anigu waxaan la yaabanahay baarlamaanka Soomaaliyeed ee doonaya inuu laba mushahar qaato midna wasiir ku qaato midna baarlamaanka ku qaato waa arrin cajiib ah waana xishood laan bulshaduna way arag midlanka wasiir oo baarlamaanka ka yimi tolo askar baa laga dhigaya waa la gaardisiinaya nimayow marka anigu waxaan ku talin lahaa kii wasiirnimadiisa ha ku ekaado kii baarlamaankiisa ha ku ekaado si nimanka darbiyada fadhiya aqoonta ay shaqo u helaan oo ninkaasi mushahar u helo meesha ninkii hal nin laba mushahar qaadan lahaa reego darbiya fadhi aana hayso riida isnuugdi dogon kirno riida yaaba isnuugdi anu hal xabaanadillah موشيني يلا ما موشر ميار لازم توحانتين يالي مينا والله أن يالين أو بالله أن يالين دعنا أنك قرر يا بالله أبريل تومنجا واسكرها إنهم مدوينه دوردان وقتي رئيس الوزراء هم قبضة إنك كدم بيه وقتي رئيس الوزراء ما قابي وقتي أسايك ورا أرينا كهر مرينا كيم رئيس الوزراء كدم بوي ريال ويلي يالي مينا والله أن يالين أو بالله أن يالين والله لم يسرعي ميسو يا ويلي بتيجي هرياضة برلمان كقلب دقوت شيء يصير إنجيس فيرين أوس فيرين هاي كنا بدبعد يسكدقين وحقرنا ده ساكا الكلاعي أو أفضل دولار هذا نحفظني يا دور كارا ninkii madaxweyne siiraay la magacaha magaciisa la baxay boolisku xiray maanta casuumay madaxweynuhu maantana wuxuu la fadhiistay guriga weyn ee martida ee Bush House Somaliland marka ninkaasina wuxuu ahaa nin macallin iskuul ayuu ahaa marka magacana waligii baa la oran jiray marka way ku gafeen booliska Somaliland waa maxay qabqabsigan badan ay la yimaadeen booliska Somaliland shooral baaba bixinayaan beewaste marka ninkan aad buu u xaalmariyay madaxweyne siiraayo ninka ay isku magac yihiin waxaana isla ahaan jireen jabhadii la oran jiray SNM ay Somaliland ka soo asaasantay war dilalka qorshaysan muddooyinkii ugu dambeeyay way soo bateenoo dilkii ugu dambeeyay xoghayaha degmada Wadajir ayaa maanta halkaas lagu dilay gudoomiye waaxidna waa la dhaawacay oo adeer yaa buufiyay yaasa soo qorsheeyay qorshihiisu waa joogta way iska socdaay ma hadda isweydiinaysan wixii soo qaban lahaa la waayay dogonga atiin ilaahay nimadiisa inoo la sheego Soomaalida aan araga u samaanta ilaahay ka gari hiraatu may banin qubaday roob ilaahay karaaleeyaan in qubadi taasiyada min sheegasan hiraag iyoonay baqtiga iyo qoranka iyoonay baraxle ila sheegasana ma aysan qatay ku jeedan waxaad sheegayso anigu ma adan garan oo garaf gurufta ah dawladii wali lama ansixin golihii wasiirada wali lama ansixin dawladina wali waa laba nin wax ma kale oga dadka dawladu lama nin ma waa hal nin waana joogiya madaxweynaha kiyo shirka igaan uga qayb gala kana arrimihiisa kale iyo hawshiisa kale aaba inji ku haysa wariyo madaxweyne Trump wuxuu leeyahay wuxuu ku bedelo Obama keeradan warwal ma shiidin ilanka madaxweynaha oo bahay oo sablu waana ma inbay gobolka leey beledweyne idiisa saday maahneena hoo isan er doontan iyo hoo hanaga doonan u sii haye hanaga doone mismeelisa ka doon mooshi idiisa jare waana mooshin aan diyaar mooshin arya wali wabiyaashu waa qallalan yihiin oo Itoobiya roob kama diin wax kale la yaabaan maqlay waxa la yiri biyaha ku yimaad wabiga Itoobiya ka yimaadeen Itoobiyana il dhibacdeed kuma ogola oo xabadahay marka wali roob kama diin miya Itoobiya masaya ka xirtay duka yoonay gorashada masle una may yabeeska gaalka ay yoonay ilbaydo iyo wabinin ee gorasho suubsoo ilan yaw adeer dooxi weyn ay Hargeysa ma idin soo furna wabiga ha idin ku darsamee war baxwariya saaway wuxuu wada weeran array waraabaha ku abaarin Hargeysa awadiyo ka dhax qayliya
الصالح